madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa tacsi u diray shacabkii ku geeriyooday roob xooggan oo galabta ka daay caasimadda Hargeysa kaasoo sababay khasaare naf iyo maalba leh. waxaan ka tacsiyanayaa ummadda Soomaaliland meel joogtaba dhibaatada iyo geerida ka timid barwaaqadii da'day 5 qof bay imika maraysaa magaalada Hargeysa gobolada wari wax laga soo sheegay khasaare iyo dhimasho ah dhaawacana waa badan yahay ilaahay dadka ha u naxariisto kuwa dhaawaca ana ilaahay ha inoo caafimaadiyo kuwa dhintay reerahoodii iyo qoyskoodina samariye iimaan buuxa Allah ka siiyo waa ka tacsiinaa ummadda iyagaba ilaahayna halkooda cawl khayr qabaha u soo galiyo iyagana naxariis jannaha geeyo waa shahiido qofka daad qaada waa shahiid سلينا شيء يقف كذا عنك دلبا مدن موسى بيحي عبدي مدحونها جمهورية Soomaaliland oo la dareena shacabkiisa ayaa guuraha beenimo kormeer ku tagay goobihii uu khasaaruhu ka soo gaaray roobkii xoogana ee caasimadda Hargeysa ka da'ay galabtay la caawa kaasoo sababay dhimasho 5 qof oo qaarna daad qaaday halka qaarka kalena geeridooda ay sababtay korontada leydhka kadib markii ay soo go'een birihii leydhka isku kala gudbinayay waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u kuur galay khasaaraha dhabta ah ee roobabkaas ay sababeen isagoo madaxweynuhu mid u booqday goobihii uu khasaaruhu ka dhacay ee ka koobnaa xaafadaha kala duwan ee caasimadda Hargeysa waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland socod luuga ku maray gudaha caasimadda Hargeysa si uu indhaha uga soo qaado dhibaatada ka dhalatay roobkii xoogana ee caasimadda Hargeysa ka da'ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha biyo mareenka ah isagoo madaxweynuhu fariin adag u diray shirkadaha korontada leydhka bixiya dadku waxay degayaan meelihii biyo mareenka ahaa oo caruur iyo maata laga tagaya dadku waxay soo galayaan laagihii biyo socdaan iyagoo gawaari wata oo aan iska hubin dadka xoogiisa dadka dhintay wax gaari qaaday daad qaaday oo gawaari ku jiray iyo dad leeytrig biyo danaboobay oo leey soo go'ay danabeeyay ay ku dhaceen khasaaraha shirkadaha leeyka ee waayarka sida sanduusha marinaya ee maalin wala roob dhacaba dad uu qabsanaya waa dhiil la weyn waana arrin laga qaadi doono tallaabo ah in dadka laga safgareeyo leeyka dadka dagaalaaga ee biyo xidhan deega ee kolba dawladda hoose ay haystaan iyo booliiska maalin walba iyana waxa la ilaalinayaa waa naftoodii ciidanka ku jira tirisa waa la idin sheegay gurmadku intuu leeyahay waxa soo dhimana waxay u baahnaa intaan roobku in dadku inay maqlaan danahooda marka loo sheego meeshay degayaan waxyaalaha ka faa'iideysan leeyahay kamid yahay in si nabadgelyo loo isticmaalo baabuurta oo faa'iido leh in si nabadgelyo loo isticmaalo ummaddu waxay u baahan tahay inaanu aad isaga wacyi gelino arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada sanad wal oo roob weyn helaba inta uu keena dabeecadu ay keentay ee daadka iyo gabiyo keena waxa leeg inta xageena farsamadu ka xuntahay ee aan la adkaynin qorshayaasha ay ku iman karaan haddii ay dhibaato timaado nabadgelyo khasaaraha sii kordhin kara taana waxa ku dardaaraya cid walba xilka saaran yahay hadday dadka la intriga bixiyo tahay hadday dadka dhulka gudan degaya tahay inay dadku marka hore ka waantoobaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu yiri waxaan xoojinayaa xafiisyada ku shaqada hawlahaasi inuu soo sharci yahay dadka ku joojiya oo dintooda kala taliyaan iyagoo xooyeeleynin Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiib warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha caasimadda Hargeysa.